guda jirnaa barnaamijka halabuurka iyo heesaha ee hiil media. Cabdirashiid, bal haddaynu halkaasi boogga kaga soo noqonno, maase waxaa jidha dumarka qiimaha ay leeyihiin aada ku tilmaamayso. Bal maxay tahay gormey ay kugu dhalatay maasadaasi? walaal maashada waxay ka hadlaysaa dumarka qiimaha ay leeyihiin iyo sida lagu baahan yahay inay ku dhaqmaan. waxayna oranaysaa sida tani: adoo xidig yahay ee waadka intaa dheer xaawalayda allihii sida huuralcaynta xiriirta kuugu abuuray xaqiisa haddaanad oofin xurmayn labadaada waalid xilkood u dhabar adeegin xayaatada nuuri maysid haddaadan xishood asluubta xumaanta aad ka dhowrsan xijaabka ku dhaadan diinta intaad la xiditoo jeclaato haddii rabbi kuu asteeyey haddaanad ku haadin xaadir xantiyo beyntaad iska dhaafin xayaatada nuuri maysid in aan meher kuu xalaashan intaad laaftaada xigdo intaad la xadraydo maaha miskiyo xaaraan cad weeye xaqii noloshana maaha intaad xurmo beel ahaato naftaada waxay u xiisto sidii xayawaanka yeeshid adduunkana waa xawaare naftaada xusuusa mowdka dikrina alla ku xidhnow xusuuso weynii rasuulka sala allahu aleyhi wasalam. waayahay marka halkaasi ay naga soo noqono maasadaasi aada uga hadlayso dumarka, bal maxay tahay hadafkaaga hal abuurnimo? walaal hadafkii hal abuurnimo inaan ka guulgaaraa waa inaan ka miro dhaliyaa. sidoo kale waa hadafkaygu wuxuu yahay inaan bulshadii soomaaliyeed waxaan fikrad iyo aqoon iyo xeelad aan dheeryahay inaan uga faa'iideeyo inaan dalkaani dadkeena aan ku horumarino aan ku dhaqno aqoonta iyo xirfadda aan leenahay uguna faa'iideyno bulshadeenna soomaaliyeed. waayahay cabdirashiid, markaan barnaamijkii qaybihii ugu dambeeyaan maraynaa, bal haddaynu wax kaa weydiiyo xilliyada aada faraaqada aad leedahay oo aad waxbarashada aad markaasi faraaqada aad ka leedahay maxaad qabataa oo noloshaada aad ku mashquulisaa? su-aal muhiim ah oo qof kastana looga baahan yahay inuu ka jawaabo. haddii aan ahaana ka jawaabo xilliyada aan faraaqada leeyahay aan fursadda hayo inta badan waxaan isku madadaaliyaa akhriska buwaagta. akhrisku wuxuu muhiimad u leeyahay qofka nafsadiisa. akhrisku qofka markuu akhrista wanaagsan noqdo wuxuu la nool yahay bulshada soo socota, wuxuu la nool yahay dadkii noolaa 2 qarni ka hor, wuxuu la nool yahay dadka hadda jira. waxaan isku mashquuliyaa inta badani akhriska si aan uga faa'iido aqoon iyo waayo aragnimo dheeraad ah. waayahay xilliyada aad markaasi aad bulshada ku dhex jidho maxaa jeceshaa inay bulshada kugu wacdo ama dadka qaar ka mid ah? horta waxaa waxaa ugu wanaagsan qofkaa ku yirahdo walaal. walaaltinimadu waa shay muhiim ah. dadka waxaa walaaliya diinta islaamka, sidoo kale annaga ahaan waxaana walaaliya soomaalinimada. qofka waxa uu kugu wanaagsan kugu yeerana waa walaaltinimada. waayahay maasada ugu dambeysa oo aan barnaamijka caawa kusoo xiri doono, maadaama ay maasooyinkaada iyo gabayada aada curisay ay aada u fara badan yihiin, bal midda ugu dambeysa aan jeceshahay inaad barnaamij kusoo xirno maxay ka hadlaysaa, maxay tahay? waxayna u dhacaysaa sida tani: macaanteedii noloshay magackii ugu horeeyo macna ugu dhawaaqaa macankaaga weeyaan marna kuma ilaawe mahad iigu noolow macan aniga oon muruq aan ku xoogsado midigtaada kuu gelin mowligama kaa dilo. macaanteeda noloshay ma moogani dantaydee maalmaha adduunkiyo wakhtigaa ima quurshee maamka iga lumiye mar unbaan ka soo kaban muraadkayga nafteediiyo maankayga wuxuu rabay midigteeda soo geli. waan muuqan doonaa maalmo weeye dunidii murtidu waxay tiri gacantii madhaatee mid kale mau gargaartaa. maamaah waxay tiri gedkii mogoolihiyo malab xabar barsheediyo mulaax weeye dantuye muxubi iyo galgacal mudnaan u siiyo sharaf lagu macuseye mowlow allahayow aqbal maansideedo muraadkayga ii fuli. waa tahay ugu dambeyntii kelmadaada ugu dambeyso aada bulshada ka daawanayso hiil media aada u marinayso maxay tahay? walaal bulshada hiil media dhammaan waa islaamiya. waxaan u marinayaa inay midda koowaad lagu camal falo wuxuu kutubteena qur-aanka na farayn, in lagu dhaqmo allihii na abuurtay wuxuu na faray, in lagu xirnaado rasuulkeena salawatullahi alayhi wasalam xadiiskiisii iyo siiradiisii. sidoo kale waxaan kula dardaarmayaa inuu qof walba jibka saaro
danta ummadda Soomaaliyeed inuu waajib ka saaro dalkan siduu u gaari lahaa horumar siduu uga kaban lahaa burburka iyo dhibaatada haysata waana islaamiga dhammaan Hiil Media mahadsantiin. waa tahay daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka hal-abuurka iyo heesaha oo toddobaadkan marti inagu ahaa cabdirashiid cabdulaahi dulyar anigoo maxamed soomaaliya haweenla socodsiina intaan barnaamijkan barnaamijka ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.